dowladda Algeria waxa iska diiday faragelin military oo ay ku sameyso dalka Niger. sidoo kale waxaa soo baxaya in hogaamiyaasha afgambiga ay ka dalbanayaan kooxda calooshooda shaqeysiyaasha ay Wagner in ay caawiyaan. wakaalada Associated Press ayaa soo xiganaysa mas'uul military oo reer galbeed ah oo sheegaya in hogaamiyaasha afgambiga dalka Niger ay ka dalbadeen gacansiin ay ka helaan kooxda Wagner ee Ruushka iyagoo ka soo jeeda. madaxweynaha wadanka Algeria Abdelmadjid Tebboune ayaa waxa uu ka soo horjeestay isku day waliba oo military oo ka dhan ah dowladda dalkaasi Niger. taa waxa ay handadi doontaa ayuu yiri dhammaan wadamada galbeedka Afrika. ciidamada dalka Niger ayaa waxa ay shaaci ka qaadeen in ay diidan yihiin in dib ay ugu laabtaan saldhigyadoodii ayna ka laabtaan go-aankoodii afgambi ee ka dhacay wadankaasi Niger. dowladda Chad mowqifkeedii military ayay ku adkeysanaysaa oo ay la qabto wadamada jaarka la ah ee galbeedka Afrika. Faransiiska waxa uu sheegay in uu wax waliba uu ka fiirsan doono suurtagalnimada in uu ku caawiyo wadamada kale ee galbeedka Afrika ee howlgalka u diyaar garoobaya in uu gacan u siiyo. wakaalada Associated Press ayaa soo xiganaysa mid ka mid ah hogaamiyaasha afgambi ee booqday wadanka Mali kaasi oo xiriir la sameeyay kooxda Wagner. waxa uu sheegay in hogaamiyaasha afgambiga ay doonayaan in kooxda military ee Ruushka ee calooshooda shaqeysiyaasha ah ee ku sugan wadankaasi Mali in ay la tacaamulaan faragelinta tooska ee militariga ay sameyn doonaan wadamada dhaqaalaha ku horumaray ee dowladaha galbeedka Afrika ee ECOWAS kuwaasi oo muddo 7 maalmood ah oo ay u qabteen kooxda afgambiyaasha kula dhaqaaqay dalkaasi Niger iyo dowladaba in ay ku dhiibaan talada wadankaasi. saacado ayaa ka harsan haddii ay saacadahaasi ay ka jawaabi waayaan waxaa suurtagal ah in ay kooxdaasi ay gudaha ay u galaan wadamadaasi kuwaasi oo ka jawaabi doona ayaa la yiri sidii dimuqraadiyadda dib loogu soo celin lahaa. wakaalada oo hadalkeeda sii wadato waxa ay leedahay dalabkaasi waxa uu dhexmaray jaranaal Nigerian ah oo lagu magacaabo Salifa Moudi iyo sidoo kale wakiilka Wagner ee ku sugan wadanka Mali. mas'uul reer galbeed ah oo la hadlayay Associated Press waxa uu sheegay in afgambiyaasha dalka Niger ay hadda ay u baahan yihiin kooxdaasi Wagner in ay damaanad qaad ay ugu sameeyaan sidii ay xukunka ay u soo joogi lahaayeen. kooxdaasi calooshooda shaqeysiyaasha militariga Ruushka ayaa iyagu waxa ay hadda ay ka fiirsanayaan dalabka uga yimid dowladda dalka Niger amaba kooxda afgambiga kula wareegtay wadankaasi Niger. kanalka Al Nahar oo soo xiganaya madaxweynaha dalka Algeria Abdelmadjid Tebboune waxa uu sheegay in dowladda Algeria ay diidan tahay suurtagalnimada faragelin military oo lagu sameeyo dalka Niger. waqti hore madaxweynaha wadankaasi Algeria waxa uu ku baaqay in dhibaatada ka taagan dalkaasi Niger wadiiqa dhinaca nabadda ah loo adeegsado sidii xal looga gaari lahaa dhibaatadaasi. Tebboune oo isagu wareysi bixiyay waxa uu sheegay in Algeria ay iyadu mar waliba ay taageeri doonto sharciga iyo dastuurka wadanka Niger. waxa uu sidoo kale uu cadeeyay wixii ka dhacay dalkaasi Niger ee afgambiga ula jeeday in ay ka haboonayd in marka ugu horeysa sharciga iyada oo la marayo dastuurka la ixtiraamo. waxaa muhiim ah in dib loogu laabto dastuurka taa oo ah mid aan soo dhaweyn doono ayuu yiri. wasiirka difaaca ee wadanka Chad Dawood Yahya waxa uu sheegay in wadankiisa uusan wax faragelin military ku sameyn doonin dalkaasi Niger. waxa uu ugu baaqay dhammaan dhinacyada in ay wada hadal ay tagaan si xasiloonida wadankaasi loo ilaaliyo. Mr. Yahya ayaa ugu baaqay shacabka Niger in ay feejignaadaan khatar weyn oo ku soo socota. dhinaca kale madaxweynaha Niger ee xilka laga tuuray Mohamed Bazoum ayaa waxa uu isagu khamiistii la soo dhaafay uu ka digay maqaal uu qoray jariidada Washington Post ee Mareykanka laga leeyahay cawaaqib xumida ka dhalan doonta haddii afgambiga uu ku sii socdo wadamada galbeedka Afrika. sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in suurtagalnimada kooxda Wagner ay ka qayb qaadato in ay barbar istaagto kooxda afgambiyaasha ee dalkaasi Niger in dhibaatada ay uga sii dari doonto dalkaasi Niger. waxa ugu baaqay xukuumadda Washington beesha caalamka in ay gacan ay ka geystaan sidii loo soo celin lahaa nidaamkii dastuuri ee wadankaasi Niger.